odayaashii dhalinyarada degmada Boondheer ayaa waxay soo dhaweyn diiran u sameeyeen ciyaartoygoodii hore ee degmada Boondheer oo u soo ciyaaray sidoo kale xaafadda Maanabooli oo qayb weyn ka hayeen deeqow iyo sidoo kale waxaa kamid ah markaas la soo dhaweeyay Mukhtaar oo iyagana ciyaarta soo dhaweynta ay markaas ka hadleen soo dhaweyntan ayaa ah mid lagu talagalay in lagu soo dhaweeyo labadan lejan ee hore u ah isboortiga degmada Boondheer soo dhaweynta ayaa waxaa ka soo qayb galay taageerayaal aad u fara badan oo markaas iyagana qayb ka ah ciyaartoydii hore iyo sidoo kale dadyooga jacayl sportiga madasha ayaa waxaa ka hadlay aboosti iyo mas'uuliyiin kale oo ay markaas soo dhaweeyeen ciyaartoydooda hore ee degmada Boondheer gaar ahaan xaafadda Maanabooli iyagana dareenkooda ayay ka hadleen waxa ay markaas sheegeen in ay markaas tahay dalkooda hooyo ay ku soo dhawaadaan sidoo kalena ciyaaraha ay markaas loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo halkaasina waxa ka dhacay ciyaar aad u xiiso badan sidoo kale waxa markaas Mukhtaar Malaay ayaa isna ka hadlay oo kamid ahaa dadka sida weyn ee loogu soo dhaweeyay garoonka Maanabooli ee degmada Boondheer sidoo kale waxaa ka hadlay mas'uuliyiin kale oo aad u fara badan oo soo dhaweyntaasi ay markaas soo dhaweeyeen iyagona marka aad ula riyaaqeen qaabka loo soo dhaweeyay iyo sidoo kale bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaan ku soo dhaweeynaa TV-ga soo dhawaada laakiin Mustafa Malaay iyo Maxamed Abdulqaadir Showay soo dhawaada waddankiina hooyo waddankiina waaye caafimaad iyo rajada insha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تمام وحاكم مدعينا وحاكم مدعينا مقابلة ولو قابل سودانيته محمد عبد الله iyo Mustafa Malaay soo dhawaada waxaa halkan madaxina TV-ga Helan Media waxaa leeyahay marwaan ayaan ilaahay nasiibina oo shaqada qabtaan bulshada sports ka waysan waxaan leeyahay soo dhawaada waraysiga بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المعادي يقول صار الشقتي برامج كان وبرامج أدو قيم بدن وأنا سولنا اس تي في هلا حاسي قالوا سولنا ساحب بدن أو متقنا لقي بدن مربوطة مصطفى ملاي يو محمد داق شوي مركا كل عاد قروح بدوي ما عاد ما ستين تي في ضمان سبورت أصحابته يو جارانس جارا تي في هلا هذا ما ستين هذا ما ستين بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaa aad u faraxsan garoonka weyn ee Maanabooli TV-ga qaranka Helan TV Sports aad iyo aad u soo biiray bahda sportska waan ku faraxsanaa odayaasha Maanabooli inay noo soo dhaweeyaan aniga oo Mustafa Malaay ama Showay soo dhaweynta noo sameeyaan odayaasha iyo gudoomiyaha Maanabooli dhalinyarada iyo odayaasha Abdullaahi Aboosto aadaan ugu faraxsanaa waxaan kaloo mar labaad iyo mar saddexaad soo dhaweyn qiimo badan u haynaa TV-ga Helan oo aad iyo aad kaalin weyn doorka sportska ku leh waxaan leenahay soo dhawaada garoonka Maanabooli waana mahadsantahay assalaamu calaykum ciyaaro badan oo xiiso badan ayaana ciyaar doonaan dhawaan waxaana rajeynaynaa yiraahdeen in isboortiga dalka qayb ay ka yihiin sidoo kale ciyaartoyda iyo martida ayaa iyagana dhankooda kaga mahad celiyay Helan TV oo qayb weyn markaasi ka qaatay soo dhaweynta kuna ciyaareedkan lagu soo dhaweynayay deeqow iyo sidoo kale Malaay oo markaa kamid ahaa bahda sportiga markaa Maanabooli waxa ay markaasi sheegeen in aad u riyaaqeen qaab ciyaareedka iyo soo dhaweynta kuna ciyaareedkan oo loo sameeyay iyagoona sheegay in aad u soo dhaweynayaan tartamada ay dhawaan la ciyaar doonaan qayb ay ka noqon doonaa isboortiga ayaana horumarin doonaa ayay markaasi sheegeen